مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا. بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشا ترتنكا iyo sidoo kale ardayda tartamaysa waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii tartan aqooneedka ee ka socday dugsiga hoose dhexe sare ee Al Rashaad maanta waxaa ku balansan oo ku tartami doono fasalka form 3 iyo fasalka 7 haduu la yiraahdo labada fasalba waa wareegan hadda socda waa markii ugu horeysay is arkayaan waxaan rajeyn doonaa insha Allah labaduba in guul ay ka gaaraan waayahay inta aan tartankeena gudagelin waxa idaha Quraan Kariimka iyo qolkii ee been ugu daafuri doono ardayga lagu magacaabo Cabdisalaam Xariyan Jaamac oo kamid ah ardayda tartamaysa gaar ahaan fasalka 7 soo dhow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد waayahay waxaan si toos ugu gali doonaa tartankeena mar haddii ayada Quraan Kariimka iyo qolkii ee bal nagu daafuray waxaan u gudbaynaa qaybihii xigay ee tartankeena labada fasal ee tartamaysa waxaan ka codsanaynaa min hal arday inay soo dirsadaan si aan u ogaano groupka ama fasalka aan ku bilaabi doono su'aalaha waxa ay helay fasalka form 3 ee dugsiga sare sidoo kale fasalka 7 waxa ay heleen B marka waxa ay ka dhigan tahay fasalka form 3 ayaa su'aalaha ugu horeeya mar walba ayaga lagu bilaabi doonaa halka ay u dambeyn doonaan mar walba su'aalaha weydiintoodii marka loo fiiriyo fasalka 7 waayahay tartankeena maanta xiisad gaar oo leeyahay iyo xamaasad insha Allah waxaan rajaynaynaa labada group sida u soo diyaar garoobeen ay wax aqrintoodii iyo dadaalkoodii in ay helaan insha Allah qaybtan hore su'aal weydiinta waxa inoo qaabilsan al-ustaad Cabdulcasiis Ali Xasan waxaan rajaynaynaa insha Allah in qaybtan asaga aan ku wareejino bismillaah su'aalaha waxa ku bilaabaynaa fasalka form 3 oo iyagu ah group A waxaan ku bilaabaynaa maadada koowaad ee tartankeenu ah maadada tarbiyada islaamka سؤال شو حول أساسية كيف كانت الأمم السابقة يعتبرون المرأة مركل أنكسو علشو كيف كانت الأمم السابقة يعتبرون المرأة مرسدحات كيف كانت الأمم السابقة يعتبرون المرأة جوابت baahidu 10 bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tagin ciyaarifka laguma dhalin dibba aadmiga wax baray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhigoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo ridada halkuu qeyrkaa wax dhigay bismillaah magaca waa Caaisha Cabdullaahi Cilmi oo ka socota fasalka F3 gaar ahaan group A سؤال جوابته الحين قلنا كانت السابقة يعتبرون المرأة رجسا أن يفر منه سؤال اللي ودي فصل كفوم 3 مادة التربية أهيد جوابته كبحيان وجواب صح وإسلا سؤال مدى الله عنا وإسلا مادة التربية الإسلام كا وأنا سؤال اللي بعد ترتن كينا أهنا سؤال كواد مادة التربية الإسلام كلا ودين دون فصل كتدبات ويجوا جروبي markaas aan xaq u leeyahay in la weydiiyo su'aal kasta ee labaad ee maadooyinka lagu tartamayo su'aashu waxa uu dhacayaa sidatan limaada shar'a Allah ta'ala adh-dhikra limaada shar'a Allah ta'ala adh-dhikra marsadahad limaada shar'a Allah ta'ala adh-dhikra jawaabta baahidu 10 bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tagin ciyaarifka laguma dhalin dibba aadmiga wax baray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhigoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo ridada halkuu qeyrkaa wax dhigay magacay waa Maryam Ismaa Cabdullaahi ka socota fasalka 7 gaar ahaan group B jawaabtu waxay u dhacaysaa sidatan lima fiya dhamaaneen wa nufuz wa ilaaj alqulub su'aasha la weydiiyay fasalka 7 oo iyagu ahaa group B ahaydna maadada tarbiyada islaamka jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax ah
waxaan u gudbi doonaa maadada labaad ee tartankeenan ahna maadada luqadda carabiga ama afka carabiga waxaan ku bilaabi doonaa fasalka form 3 oo iyagu ah group A su'aashu waxay u dhici doontaa sidatan mal maqsuudu bil andalus jughrafiyan mal maqsuudu bil andalus jughrafiyan mal maqsuudu bil andalus jughrafiyan jawaabta baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tegin ciyaarifka laguma dhalin dhibbaa aadmiga waxbaray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhiggoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo riddada halkuu qeyrkaa wax dhigay bismillaah magaca waa Caaisha Cabdullaahi Cilmi ka socota fasalka F3 gaar ahaan group A su'aasha la weydiiyay jawaabteedu waxay dhici doontaa المقصود أندلس هو مكان الذي استولى عليه جزيرة العربية أوروبيا في جزيرة العربية أوروبيا إسبانيا والبرتقال حاليا. السؤال اللي ودي فصل كفورم 3 أو يجوها جروب A أهيدنا مادة أفكار عربية جوابتي كبحيان وجواب غلط أنا هين وسؤال مدى لعينه هو مادة عربية أو اللغة العربية waxaa la weydiin doonaa fasalka 7 oo iyagu ah group B su'aashu waxay u dhici doontaa sidatan ماذا اتفق الأصدقاء الثلاثة ماذا اتفق الأصدقاء الثلاثة مرسدحات ماذا اتفق الأصدقاء الثلاثة جوابت baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tegin ciyaarifka laguma dhalin dhibbaa aadmiga waxbaray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhiggoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo riddada halkuu qeyrkaa wax dhigay anaga oo magaciisu yahay cabdisalaam xasan jaamac kana socda fasalka 7 group B su'aasha jawaabteeda isku dayo waa فاتفق على أن يبحث كل منهم وحده في جميع الاجتماع فاتفق على أن يبحث كل منهم وحده في جميع الاجتماع السؤال اللي ودي فصلك 7 oo iyagu ah group B ahayna maadada afka carabiga jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax aan ahayn oo qada jawaabta toos waxay noqon doontaa اتفق الأصدقاء الثلاثة على أن يبحث كل منهم وحده عن طريق النجاح fasalka form 3 ayaana su'aasha ugu horeysa ee maadada Soomaaliga aan weydiin doonaa waxay u dhacaysaa sidatan dhamaystir jiiftada soo socota magacaygu waa qaad geed qaraar baan ahay qasaariyo dhib baan ahay mar kale aan ku celiyo fasalka form 3 su'aal Soomaali ah si degan iyo dhageysta dhamaystir jiiftadan soo socota magacaygu waa qaad geed qaraar baan ahay qasaariyo dhib baan ahay waxaan filayaa inaad fahanteen su'aasha oo degdeg ah jawaabteedii waad ka sugaynaa insha Allah baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tegin ciyaarifka laguma dhalin dhibbaa aadmiga waxbaray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhiggoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo riddada halkuu qeyrkaa wax dhigay bismillaah magacaygu waa Nimco Salaad Abtidoon kana socda tartamayaasha fasalka F3 gaar ahaan group A magacaygu waa qaad geed qaraan ayaan ahay qasaariyo dhib baan ahay ruux kasta oo qaata qoryahayga feentaa qaadiraan ku reebaa fadhi qiimo daran iyo qorshahan dhamaanin qarab baan ku reebaa magacaygu waa qaad qalbi doorsho baan ahay maan qaade baan ahay bala qiimo daran iyo qurun miiran baan ahay kan qaaday baabay kan wax ka qaaday baa lumay kan qaaday baabay kan loo qaaday baa jabay kan wax ka qaaday baa lumay qurunkeyga ruuxna qaadirkan ku dhaartee qandho way u dambaysaa su-aashii afka Soomaaliga ee la weydiiyay fasalka F3 oo iyagu ahaa group A jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab qalad ah jawaabta dhammaystiran waxay noqon doontaa sidatan magacaygu waa qaad geed qaraar ayaan ahay qasaariyo dhib baan ahay ruux kastoo i qaataa qoryahayga feentaa hurdadan ka qaadaa qaadiran ku reebaa fadhi
qiimo daran iyo qorshe aan dhammaanayn qarow baan ku reebaa waxna uma qabsoomaan magacaygu waa qaad qalbi doorshe baan ahay maan qaade baan ahay belo qiimo daran iyo qurun miiran baan ahay kan iqaadayaa ba'ay kan loo qaado baa jabay kan wax ka qaadayaa lumay khasaariyo dhib mooye khayr igama helayaan qurinkayga ruuxuna qaadirkan ku dhaartaye qandho waa u dambaysaa intaa waxay ahayd jawaabtii maadada afka soomaaligeed ee la weydiiyey fasalka F3 oo ayagu ahaa group A Cabdikariin Saluw ustaadii weli waxaan ugu jirnaa maadada Soomaaliga su'aashii ugu horeysay form 3 la weydiiyey su'aasha soo dhiganta waxaa la weydiin doonaa fasalka 7 si degan iyo dhageysta waxayna u dhacaysaa sida tan waa maxay sifo waxaan filayaa inaad fahanteen jawaabta ay idinka sugayna insha Allah baahidu 10 bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tagin ciyaarifka laguma dhalin dib aadmiga wax baray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhigoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyey dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo ridada halkuu qeyrkaa wax dhigay anigu meeyo Cabdilaahi Xali jaamaca ka socda fasalka 7 group B jawaabteeda isku dayo sifo waa eray wax lagu sifeeyo ama shay lahaansho su'aashii la weydiiyey fasalka 7 ee ahayd maadada afka Soomaaliga jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab qalad ah jawaabta su'aashaasi waxay noqon doontaa sida tan dhagaha fura 7 su'aashii la weydiiyey waxay ahayd waa maxay sifo sifadu waa eray ka mid ah qaybaha hadalka ee naxwaha waxna ka sheega magaca iyo magacuyaalka ina fahanteen oo rajayna aadna soo xasuusateen balse kameedan jawaabin waxaan halkaa kaga gudbaynaa maadada Soomaaliga Englishka ayaan u gudbi doonaa insha Allah waxayna noqonaysaa su'aasha ugu horeysa fasalka form 3 ayaa iska leh what is an interrogative sentence what is an interrogative sentence su'aasha Englishka jawaabteeda ayaa la idinka sugaa insha Allah baahidu 10 bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tagin ciyaarifka laguma dhalin dib aadmiga wax baray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhigoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyey dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo ridada halkuu qeyrkaa wax dhigay bismillaah magacaygu waa Nimco Salaad Bidon kana socota tartamayaasha fasalka F3 gaar ahaan group A su'aasha jawaabteeda isku dayo sida tan interrogative sentence is a sentence that asks a question with negative interrogative sentence is a sentence that asks a question with negative su'aashii maadada Englishka ee la weydiiyey fasalka F3 ee dugsiga sare ee Al Rashad jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax aanan ahayn oo qalad ah jawaabta su'aashaasi waxay noqon doontaa sida tan form 3 dhagaha fura interrogative sentence is a sentence that asks a question and it always ends with a question mark. oo malayna ina fahanteen aadna haddeer soo xasuusteen balse kameedan jawaabin waxaan soo gaarnay weli su'aalihii Englishka ku guda jirnaa su'aashan waxaa iska leh fasalka 7 divine these two words flower and nectar divine these two words flower and nectar labadaas eray ayaa laga rabaa inaad definition u samayso waxaan filayaa inaad fahanteen jawaabta inaad ka sugaa insha Allah baahidu 10 bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tagin ciyaarifka laguma dhalin dib aadmiga wax baray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhigoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyey dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo ridada halkuu qeyrkaa wax dhigay magacaygu waa Abubakar Maxamed Axmed waxaana ka socdaa fasalka 7 jawaabta isku dayana waxa flower is the part of plant
of planets, princes, seeds of fruits. Nectar is the prince or procrease insect or connect. su-aashii maadada Englishka ee la weydiiyey fasalka 7aad oo iyagu ahaa group B jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax aanan ahayn oo qalad ah jawaabta su-aashii ay qaldeen fasalka 7aad oo ahayd maadada Englishka waxay u dhacaysaa sidatan flower is a part of plant that produces seeds or fruits. Nectar is the substance produced by plants to attract insects. waaya biology-ga ayaan soo gaarnay sidoo kale fasalka 7aadna ayagana science ayay qaadan doonaan marka qofku markuu imaanayo xogaa marka uu microphone qabsado waxa ka muuqata qalqal yar oo su-aashii waxa uu hayay xataa aysan isugu toosnayn marka isdeji markaad soo baxaysana ayadoo aad dadka la soo tashatay oo wixiina xogaa aad hayso kalsooni ay kugu jirto imo waaya su-aasha ugu horeysa biology-ga waxaa iska leh fasalka form 3 waxayna u dhacaysaa sidatan divine pollination waxaan filayaa inaad fahanteen jawaabta ayaad ka sugaynaa insha Allah baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tegin ciyaarifka laguma dhalin dhibba aadmiga waxbaray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhigoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo ridada halkuu qeyrkaa wax dhigay bismillaah anigoo magacaygu waa Nimco Shaafici Maxamed kana socda fasalka F3 gaar ahaan group A taas su'aasha jawaabteeda isku day waa pollination is a transfer of pollen which is stigma of the plant pollination is a transfer of pollen which is stigma of the plant su-aashii biology-ga ahayd la weydiiyey fasalka form 3 ee dugsiga sare Al Rashaad jawaabtii ay ka bixiyeen waa jawaab qalad ah jawaabta su-aashii la weydiiyey form 3 dhegeysa su-aashu waxay ahayd define pollination is the transfer of pollen from the anthers to the stigma malaheegu waa soo xasuusteen hadeer balse wax badan idin ma kordhiso oo waa gabteen haddii aan ku soo celiyo pollination is the transfer of pollen from the anthers to the stigma fasalka 7aad ayagu science ayaa la weydiinaa maadaama aysan qaadan biology su-aashooda science-kana waxay u dhacaysaa sidatan dib u maareynta caagadaha waxa ay soo maraan 6 heer haddaba waa maxay heerarkaas mar kale aan ku celiyo si degan ii dhegeyso dib u maareynta caagadaha waxa ay soo maraan 6 heer haddaba waa maxay heerarkaas waxaan filayaa inaad fahanteen jawaabta ay ka sugaa insha Allah baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tegin ciyaarifka laguma dhalin dhibba aadmiga waxbaray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhigoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo ridada halkuu qeyrkaa wax dhigay magacaygu waa Maryam Ismaaciil Abdullaahi ka socda fasalka 7aad gaar ahaan group B su-aasha jawaabteeda waxay dhacaysaa sidatan soo ururin kala soocid jeexjeexid nadiifin dhalaalin sameynta gobollo yaryar su-aashii maadada sayniskeeda la weydiiyey fasalka 7aad oo iyagu ahaa group B jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab qalad aanan ahayn oo sax ah waayahay weli maadooyinka sayniskan ku jirnaa fasalka form 3 waxaa la weydiinaa maadada chemistry-ga waxayna u dhacaysaa sidatan what is the difference between endothermic and exothermic reactions waxaan filaa in la fahmay jawaabta ayaan sugaa baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tegin ciyaarifka laguma dhalin dhibba aadmiga waxbaray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhigoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo ridada halkuu qeyrkaa wax dhigay
بسم الله أنا مقعي يعني مع شافعي محمد كنصر عضو فصل F3 جارهان جروب A. That's why جوابت السكودة هو endothermic reaction that release energy to the form heat or light. Exothermic reaction that absorb energy to the form heat or light. Endothermic reaction that release energy to the form heat or light. Exothermic reaction that absorb energy to the form heat or light. su-aashii maadada kemistrigeeda la weydiiyey fasalka F3 ee dugsiga sare Al Rashaad ahaana group A. jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax aanan ahayn oo qalad ah. jawaabta su-aashaas la weydiiyey waxay u dhici doontaa sida tan form 3 dhagafra. Endothermic reaction is the reaction that absorbs energy in the form of heat or light. qaybtaas waa ka dhamaaday. Exothermic reaction is the reaction that releases energy in the form of heat or light. Observe and release, they are two different meaning. waa ka gudbaynaa ustaad Sudow. su-aashaas kemistriga halka ayaan ugu gudbaynaa. waxaan aadaynaa fasalka 7 waxaan la weydiinaa su-aal saynis ah maadaama ayagu aysan qaadan chemistry. waxaa mar kale su-aal xigta su-aal kale lagu weydiinaa isla sayniska. waxaan u dhacaysaa sida tan waa maxay faarad waxaan filayaa inaad fahanteen jawaabta ka sugaa insha Allah. baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tegin ciyaarifka laguma dhalin dhib baa aadmiga wax baray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhigoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo ridada halkuu qeyrkaa wax dhigay. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ومقعوية وميمة عبد الحليم كانوا صعب فصل كتوات قاران جروبي. سؤال جاوبت ذو حد أساسية فارضوا واستخدم كده لتكشقين طلعت لسيد من شارته قريد السميدي وحلا مذا. su-aashii la weydiiyey fasalka 7 oo ahayd su-aashii labaad ee sayniska jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab qalad aanan ahayn oo sax ah. waxaan soo gaarnay maadada juqraafiga. sidoo kale waxaa la weydiin doonaa su-aasha ugu horeysa fasalka form 3. waxayna u dhacaysaa sida tan tilmaan halka ay dhacaan gobolada qaboobaha ah falaki ahaan iyo sidoo kaleba juqraafi ahaan. mar kale aan ku celiyo fasalka form 3 waa su-aal juqraafi ah. tilmaan halka ay dhacaan gobolada qaboobaha ah falaki ahaan iyo sidoo kaleba juqraafi ahaan. waxaan filayaa inaad fahanteen jawaabta ay ka sugaa insha Allah. baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tegin ciyaarifka laguma dhalin dhib baa aadmiga wax baray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhigoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo ridada halkuu qeyrkaa wax dhigay. بسم الله أنا ومقعي رقي عبد الله محمد كان صعد فصل F3 جروب A. سؤال جاوبت هذا إسكتيه فلك أهان واحد على 40 ديجري إلى 90 ديجري. halka juqraafi ahaan dhacdo cirifka waqooyi cirifka koonfureed. su-aashii la weydiiyey fasalka form 3 ee dugsiga sare Al Rashaad ahaana group A. maadadu waxay ahayd maada juqraafi ah. jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah. waayahay su-aashaas juqraafiga ah ee la weydiiyey fasalka form 3 aan ka gudubna waxaan u gudbaynaa cilmiga bulshada maadaama fasalka 7 aysan qaadan juqraafi. cilmiga bulshada ayaan la weydiin doonaa. waxayna u dhacaysaa su-aashooda sida tan imise dal ayuu maraa webiga niilka. imise dal ayuu maraa webiga niilka. waxaan filayaa inaad fahanteen jawaabta ayaa la idinka sugaa insha Allah. baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tegin ciyaarifka laguma dhalin dhib baa aadmiga wax baray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhigoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo ridada halkuu qeyrkaa wax dhigay. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي وبشاري بران حسن كسعة فصل كتضبات كارهان جروبي. سؤال جوابت هذا إسكتيه وحي ودع أساسية وبيجا نيل وحا أمرا كو يتبندل. su-aashii cilmiga bulshada ee la weydiiyey fasalka 7 oo iyagu ahaa group B. jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab
saxa waxaan soo gaarnay maadada businesska waxaan la weydiin doonaa fasalka form 3 waxayna u dhacaysaa sida tan what is production waxaan filaa inaad fahanteen jawaabta ayaa idinka sugaa insha Allah baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tegin ciyaarifka laguma dhalin dhibbaa aadmiga waxbaray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhiggoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo riddada halkuu qeyrkaa wax dhigay su-aashii la weydiiyey fasalka form 3 dugsiga sare ee Al-Rashaad ahaydna maadada businesska waqtiga ayaa ka dhacay oo sidaas awgeedna waxay qaadan doonaan xeerka su'aal aan laga jawaabin jawaabtiisu waxay tahay production is the method turning raw materials into finished goods or products in a manufacturing process hay fasalka toddobaad ayagu maadaama aysan business qaadan waxa la weydiinaa cilmiga bulshada su-aashoodii cilmiga bulshadana waxay u dhacaysaa sida tan goorma ayaa la aasaasay boqortooyadii ajuuraan mar kale aan ku celiyo waa su-aal cilmiga bulshada ah goorma ayaa la aasaasay boqortooyadii ajuuraan waxaan filaa inaad fahanteen jawaabta ayaad ka sugaa insha Allah baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tegin ciyaarifka laguma dhalin dhibbaa aadmiga waxbaray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhiggoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo riddada halkuu qeyrkaa wax dhigay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa bishaare ibraahim xasan ka socota fasalka toddobaad gaar ahaan group B su-aasha jawaabteeda hadaa isku daya waxay u dhacaysaa sida tan waa qarnigii 10aad ee miilaadiga su-aasha cilmiga bulshada ee la weydiiyey fasalka toddobaad ee dugsiga dhexe ee Al-Rashaad jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax ayahay waxaan soo gaarnay maadada physics-ka waxaan la weydiin doonaa su-aasha ugu horeysa physics-ka fasalka form 3 waxayna u dhacaysaa sida tan the capacitance of a capacitor is 3 microfarads if a charge of 108 microcentigrade exists on it calculate the its potential difference mar kale aan ku celiyo waa su'aal physics ah si degan ii dhageysta fasalka form 3 the capacitance of a capacitor is 3 microfarad if a charge of 108 microcentigrade exists on it calculate the it is potential difference waxaan filaa inaad fahanteen jawaabta ayaan idinka sugaynaa insha Allah baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tegin ciyaarifka laguma dhalin dhibbaa aadmiga waxbaray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhiggoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo riddada halkuu qeyrkaa wax dhigay anigu magacayga xasan xuseen axmed kana socdo group A su-aasha jawaabteeda isku day waxaa waaye 36 su-aashii la weydiiyey fasalka form 3 ee dugsiga sare ee Al-Rashaad ahaydna maadada physics-ka jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab qalad ah jawaabta su-aashaas waxay noqon doontaa sida tan natiijo waxaa soo baxayso 36 volts oo V ah halka iyagu ka yiraahdeen 36 F oo taagan Fahrenheit marka farqigaas u dhaxeeyay wayahay maadada physics-ka oo fasalka form 3 la weydiiyey halka ayaan kaga gudbaynaa fasalka toddobaad maadaama aysan physics qaadan waxaa la weydiin doonaa su'aal technology ah waxayna u dhacaysaa sida tan aaladaha soo socda u kala saar xasuusayaha gudaha iyo dibadda ROM xasuusta flashka RAM iyo cajalada CD mar kale aan ku celiyo fasalka toddobaad aaladaha soo socda waa su'aal technology ah waaye aaladaha soo socda u kala saar xusuusayaha gudaha iyo dibadda waxayna yihiin ROM xusuusta flashka
ram iyo cajalada cd-ga waxaan filaa inaad fahanteen jawaabta ayaad igsuga insha allah baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tegin ciyaarifka laguma dhalin dhibbaa aadmiga waxbaray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhiggoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo ridada halkuu qeyrkaa wax dhigay bismillaah anigoo magaciisa salmaadan cali oo ka socda fasalka toddobaad gaar ahaan group B haddii aan isku dayo su-aashan jawaabteeda waxay dhacaysaa sidatan ram iyo rom waa gudaha cajalada iyo flaashkan waa dibadda su-aashii maadada technology-ga ahayd ee la weydiiyey fasalka toddobaad ee dugsiga dhexe Al-Rashad ahna group B jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax ah waxaan soo gaarnay gabagabada tartankeena maadadii ugu dambeysay ee tartankeena ayaan joognaa waa xisaab fasalka form 3 ayaana su-aasha ugu horeysa weydiin doonaa waxayna noqon doontaa su-aashani su-aashii ugu dambeysay ee tartankooda dhanka maadooyinka marka loo fiiriyo waxayna u dhacaysaa sida tan find the sum of the first 50 terms of the sequence 1 3 5 7 9 marka la aan ku celiyo waa su'aal xisaab ah fasalka form 3 ayayna ku socotaa find the sum of the first 50 terms of the sequence 1 3 5 7 9 waxaan filayaa inaad fahanteen jawaabta ayaad ka sugaa insha Allah baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tegin ciyaarifka laguma dhalin dhibbaa aadmiga waxbaray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhiggoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo ridada halkuu qeyrkaa wax dhigay bismillaah waa aniga magacayga yaa miski maxamed abdullaahi faarax kana socdo tartamayaasha fasalka F3 group A su-aasha jawaabteeda daa ka hor celi waxay u dhacaysaa sida tan jawaab sabaxda waa 2500 jawaab celintii ay ka bixiyeen fasalka form 3 maadada xisaabteeda la weydiiyey waa jawaab sax ah waayahay waxaan soo gaarnay su-aashii ugu dambeysay ee tartankeena oo maadada xisaabta ah fasalka toddobaad waxayna u dhacaysaa su-aashooda sida tan raadi tirooyinka tirooyinka soo socda 7 3 6 9 5 mar kale aan ku celiyo waa su'aal xisaab ah fasalka toddobaad raadi tirooyinka soo socda 7 3 6 9 5 waxaan filayaa inaad fahanteen jawaabtoo degdeg ah inaad keeni doontaan insha Allah baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tegin ciyaarifka laguma dhalin dhibbaa aadmiga waxbaray dayaxa ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhiggoodiyo aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiiri geli in uu dhaafiyo ridada halkuu qeyrkaa wax dhigay أولا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا مقعي يا سارة عبد الرحمن كنا صحته فصل كتدوات جروب بي سؤال هذا أسكت تروينك والح su-aashii ugu dambeysay tartankeena ahaydna maadada xisaabta ee la weydiiyey fasalka toddobaad oo iyagu ahaa group B jawaabtay ka bixiyeen su-aashaas waa jawaab sax ah oo jawaabtu waa 6 haddana waxaa ku wareejin doonaa al-ustaad cabdikariim iyo natiijadii tartankeena bismillaah waxaan soo gaarnay gabagabadii tartankeena waxaan ku dhawaaqaynaa natiijadii guud ahaan tartankii saaka uu ka dhacay dugsiga Al-Rashad ee u dhaxeeyay fasalada form 3 iyo fasalka toddobaad labada fasalba runtii su'aalihii la weydiiyey waa ka falceliyeen inta badan balse waxaa jira su'aalo qaar oo hafasho ay timid balse waxaan ogaan doonaa natiijada guud marka aan ku dhawaaqo insha Allah maadooyinka lagu tartamay waxay ahaayeen 10 maado fasalka form 3 marka aan fiirino halka fasalka toddobaadna inta maado ay qaateen ay ku tartameen waxaan sameynaynaa natiijada fasalka form 3 marka aan fiirino waxa ay la yimaadeen guud ahaan inta aanan fiirinna waxaa jirto tarbiyada waxay la yimaadeen 2 dhibcood carabiga sidoo kale 2 dhibcood
soomaaliga ingiliishka iyo biologiga iyo chemistry-gaba waxay la yimaadeen eber halka juqraafiga 2 dhibcood ay la yimaadeen businesska iyo physics-kana ay hareer martay jawaabaheedii oo halka eber ayaa lagu siiyey maadadii ugu dambeysay ee hadda xisaabta labadeeda dhibcood waa ay qaateen guud ahaan dhibcoodii marka la isku daray waxay la yimaadeen 8 dhibcood fasalka 7aad ee ah dhiga la tartamayay fasalka form 3 ee dugsiga sare ayaguna maadada tarbiyada way qaateen oo jawaabteedii waxa ay ka heleen 2 dhibcood carabiga soomaaliga iyo ingiliishka way hareer martay oo dhibco meeshaas kuma aysan helin sayniska ayaa 2 mar la weydiiyey iyo cilmiga bulshada labaduba su'aalihii la weydiiyey jawaabahoodii way garteen oo meeshaasi dhibcihii loogu talagalay ay ka qaateen labada maadada ugu dambeysay dhankooda technology iyo xisaab ay ahayd labaduba waa ay garteen guud ahaan wadarta ay la yimaadeen fasalka 7aad waxa ay yihiin 12 dhibcood inkastoo 14 dhibcood ay ahayd buuq iyo sawaxan xilliga natiijada lagu dhawaaqi rabay ay sameeyeen aagiisa ayaa 2 dhibcood looga jartay marka dhibcaha guud waxay noqonayaan 12 halka markii horena ay la yimaadeen 14 dhibcood tartankii waxa uu ku soo gabagaboobay ee u dhaxeeyay fasalka form 3 iyo fasalka 7aad form 3 oo la yimid 8 dhibcood halka fasalka 7aadna ay la yimaadeen 12 dhibcood guud ahaan tartankeena halkaas uu ku eg yahay waxa ayda quraan kariimka iyo qowlkii ee inoogu dhaxiri doono ruqiyo سدو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يغشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقد ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونقلا وحدائق قلبا وفاكهة وأبا